baxdo gaaladu maxay doonayaan gaaladu waxay doonayaan gabadhan inay isqaawiso gaaladu waxay doonayaan inay meelaha marqaska lagu ciyaaro ay tagto waxay doonayaan inay noqoto yani qof tartakibul faahisha yani xalay baa guri loo dhacay meelahan ku yaala ma qayna aragteen clip baa wareegaya meel shiishada lagu cabo bahashan shiishada meel lagu cabo dumar xijaaban baa cabay shiishada dumar xijaaban baa cabay islaamo waaweyn baa cabay oo qaar kood booliisku waa riixi la yahay mid kamida yani intay la eg tahay booliisku way riixi la yihiin ilaahay baan idinku dhaariyay akhlaaqda noocaasa ya qof dumar oo weyn oo yani dumar waaweyn oo ciyaal wiilal yar yar dhex fadhiyo shiishad cabaya waxa gaaladu rabaan waxaas weey waxaad arkaysaa gaaladu waxay rabaan in maaragtay gaaladu waxay rabaan in maaragtay gabadhaanu ay noqoto silca oo lagu raaxaysto adduunka oo dhan waa aragteen maanta haweenayda yurub ani maraykan waan joogay yurub waan joogay waan maray waxbaan ka bartay ingiriiska haweenayda 5 nin bay la saaxiibaysaa 5 nin bay la saaxiibaysaa waxa laynaga rabaa horta inaad fahamtaan baa la rabaa gabadhan hadday xijaabato waxa la leeyahay waa akhlaaq xumi hadday is ilaaliso waa dulmi laakiin hadday isqaawiso faasidada noqoto xadaaro weeye waa ilbaxnimo waa wanaag waa sharaf ma garanaysaa yani waxa laynala rabo waxaas weeye waxa leeyahay waqtiga ka dhamaaday waa soo khulaasaynaya gabadhan muslimadda ilaahay waa ku karaameeyay ilaahay waa ku sharfay hooyaa tahay sharaf buu ilaahay ku siiyey gabar baa tahay walaal ah ilaahay waa ku sharfay walaalaad leedahay gabar la dhalay baa tahay ilaahay waa ku sharfay xaas baa tahay waxaan rabaa gabdhahan inaan u sheego cilooyinka ina haysta mujtamaceena waxaa ka mid ah socodka badan wareegga badan dumarka Soomaalidu inaad guri joogtaan waa leedinku kari waay lugaha idin cuncunahaya waxay leedahay ka soo wareegne ilaahayna wuxuu leeyahay waqarna fi biyutikunna war gurigiina jooga maxaa luguhu ku cuncunayaan maad quraan akhrisatid maad tukatid maad adkaar samaysid maad maaragtay gurigaaga joog ha u bixin dibadda iyo wareeg ha u bixin laana hadda fasaadkii waa batay fidnadii way badatay fidnadana dumarku aad bay ugu sahlan tahay inay fidnoobaan taa waa midda labaad oo laydinka rabo waxaa weeye inaad kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa sharaf baad yeelateen carruurta idinkaa u istaagay idinkaa tarbiyayseen waa ku mahadsantihiin soomaalidii burburtay oo sheekh maxamed idriis ka hadlayay haddaan idinku jirinin maanta Soomaaliya lama arkeen iga qor hadalka